I love you 정도. 사랑해, 사랑한다고. maxaad ku tilmaami lahayd xidhiidhka muddada dheer fanaanka iyo istaarka caanka ee Jungkook iyo dhegeysa fanaanada Koreaanka ee lagu magacaabo IU xidhiidh jacayl mise mid taageero IU miyay silowsay inay kaamirada hor fadhido xilli ay ku dhawaaqday I love you Jungkook maxaa sababay ku dhawaad 5 sano inaan isbedelin fikradaha iyo falcelinta Jungkook gabi ahaanba uu ka qabo ama ka aaminsan yahay gabadha la yidhaahda IU ma odhan karnaa waxay ahayd xaalad dareenkeeda leh kadib markii uu sikadiisa ugu luuqeeyay heesteeda gudhay waqti lagu tilmaamay codkiisu inuu huwanaa gabi ahaanba astaan jacayl maxay ahayd ujeeddadii uu bixii ugu dhiibay stageka waxse ma ka og tahay xilligii uu ka masayray inuu hees la qaado IU ninka la yidhaahdo Sugar intaas iyo xogo kale oo xasaasi ah ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta balse ka hor ha ilaawin inaad like garayso muuqaalka subscribe si aad u noqoto daawadaha muuqaalka xiga waan hubay inuu xiiso gaara leeyahay lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay together like this 우리 이렇게 손 모으고요. It's like we're saying like 방탄 hands going. xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka lagu magacaabo Jungkook ayaan marna qarsan dareenka kalgacal ee u hayo fanaanada Koreaanka ee loo yaqaan IU waana mid faahin oo ay cid kasta og tahay sabab la xidhiidha inuu goobo badan ka qirtay qiiminta u hayo amaba inay tahay nooca dumarka ee gabi ahaanba uu aadka u jecel yahay haddaba waxaan kula wadaagi doonaa dhacdooyinka ugu caansan ee taageerayaasha labada dhinac ku aamineen inay xidigahani leeyihiin xidhiidh jacayl oo la taaban karo aniguna adiga ayaan ku daynayaa xukunka iyo jawaabta ugu dambaysa ee ila qiimeeya muuqaalka iyo xogta kadibna igu dhaaf qaybta hoose comment sectionka Talking, and she was talking about Busan, and we all know who is from Busan. It's Jungkook, and that's when the waxaa jira dad ku kala ra'yi duwan sheekadan qaarkood ayaa aaminsan Jungkook maadaama lagu yaqaano inuu yahay qofka ugu afka gaaban ama baxishoodka badan dhanka xidigaha wiilasha kooxda BTS inuu qarsanayo dareenka uu qabo IU kuna matalayo keliya inuu hayo taageero balse runtii xaqiiqadu aanay sidaasi ahayn xidigan iyo yaraanka kooxda BTS ninka lagu magacaabay Jungkook ayaa markii u horeysay xilli ay ku sugnaayeen xaflad ka dhacaysay Hong Kong isaga iyo kooxdiisa BTS sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen fanaaniinta goobta lagu ballamiyey IU waxaa la su'aalay dareenkiisa ku aadan goobta iyo showga waxaana ku jawaabay qaab lala yaabay isagoo yidhi ma faraxsani waxaana la su'aalay sababta kadib markii uu yidhi waayo weli ma iman IU weliba isagoo matalay inuu oynayo una hadlayo qaab qiiro leh arrintan ayaa cajiibkeeda lahayd IU iyadoo soo socota uuna ogyahay inay iman doonto goobta haddana inta yar aanay weli imanin inuu ka muujiyo xidigani gabi ahaanba murugo amaba qiiro jacayl waxaa cajiib noqotay in dadka sida qotada dheer u fakara indheer garadka amaba arki kara waxyaalaha dadka oo dhan aan u muuqan ee loo yaqaano behind the scene inay aamineen ama tilmaameen marka uu doonayo Jungkook wax ku saabsan IU inuu ka hadlo waxa uu sheegayaa qaab naxdin leh ama cabsi ah taasoo ka mid ah astaamaha jacaylka waxaana tusaale u soo qaadan doonaa xilligii ay ku guulaysan jireen Billboard-ka oo ay ku sugnaayeen Maraykanka waraysi laga qaaday xilli ay saxafiyaddu su'aalayso kooxda oo dhan qof kasta inuu sheego albankii ugu horreeyey ee uu lacagtiisa ku iibsado misena dhegaystay iyo fannaankii iska lahaa Taeyang ama ninka loo yaqaana V mid ka mid ah xidigaha kooxda BTS ayaa lagu bilaabayaa barnaamijka iyo waraysiga waxaanu sheegayaa gabi ahaanba isagoo hadlaya qaab degan albankii ugu horreeyey iyo fannaankii ugu horreeyey oo albankiisa iibsado kuna iibsado lacagta jeebkiisa inuu ahaa fanaanka Ameerikaanka ah ee loo yaqaano Eminem sidoo kale xubnaha kale ee kooxda ayaa iyagoo u hadlaya qaab degan sheegaya albanadii ugu horreeyey iyo fanaaniintii lahaa balse marka ay maraysa Jungkook ayaa la is eegayaa middan oo gabi ahaanba tilmaamaysa shakiga iyo waxa uu odhan doono ninka la yidhaahda Jungkook waxaanu yidhi waad ogtihiin de waa IU middan oo keentay in lagu qoslo xogaa xataa saxafiyadii balse ninka loo yaqaano RM hogaamiyaha kooxda iyo liidarka ayaa odhanaya waa fanaanad sare iyo mid ka mid ah idolada ugu wanaagsan hadda dhanka iyo K-pop haddaba
taageerayaasha dhagaha fudud leh ayaa waxay leeyihiin arrintu ka weyn Alban oo ay Alban la iibsaday ma aha wax lagu qoslo. And you know, IU. I've heard it. She's a K-pop star. Okay. She's not like a legend. She's like #1 star. oo fiirso mar kale waxaa la su'aalayaa isagoo saaran gaadhiga xagga dambe su'aal u dhigan sidan ma jirtaa gabadhaad close tihiin ama baad jeceshahay balse wuxuu la soo boodayaa isagoo qajilaya ma jirto balse waxaa jira qof aan ka helo amaba idol tape-kayga waana IU. jawaabta uu bixiyey ninka leexda Jungkook dadka oo dhan ayaa la yaabay waxaana dood abuurtay qofka uu jecel yahay ayaa la su'aalay ee haddii aanay IU ahayn qofka wax ka dhaxeeyaan ama uu jecel yahay sida ayuu ku xasuustay maxaase meesha keenay idol iyo qofku dayasho mudan iyo fanaan iyo taageero waxayna leeyihiin si kastoo ay tahay wax weyn baa qaldan. 이상형 있어요. 야, 누구야? 그래요? 아이유 선배님. 아이유 선배님. 아이유. 네. waxaase madaxa ka weynaatay IU qudheedu in iyadoo ka jawaabaysay su'aalo badan oo online questions ah kana akhrinaysa dhanka mobilkeeda inay mar qura la soo bootay I love you Jungkook kama bay qasnayn waxaanay ahayd jawaab qariib ah balse waxay sii raacaysay iyadoo xishoonaysa waxaan odhan karaa waa qof wanaagsan. haddaba waxa la isweydiiyey ujeedka keentay Jungkook waxaana loo arkay inay su'aalaha ka mid ahayd miyaad jeceshahay Jungkook ayna kaga falcelisay sidan I love you Jungkook. I love you 정도. I love you 정도. sidoo kale waxaa mar kale la arkay xilli aanay goobta ku sugnayn xidigaha kooxda BTS inuu si qarsoodi uga soo qayb galay xafladda IU ninka la yidhaahdo Jungkook ayna tahay iyadu qofka siiyey gabi ahaanba waxaa loo yaqaano VIP ticket uu goobta ku yimaado walow isqarinayay haddana kama u qarsoomin taageerayaasha indhaha dhaadheer waxaanay markiiba farta ku soo qabteen isagoo xidhan koofiyad weyn ahna nooca madmadow ama balbalaadhan ee hore loogu yaqaana ninka la yidhaahdo Jungkook taagana qaybta dambe ee xafladda markii ay soo dhammaatay la soo dareerayna waxaa shaki ku jirin qaabka uu sii socday markuu baxayayna waxaa la arkayay isagoo faraxsan weliba boodboodaya hadba lagu sii istaagaya isagoo isle cidi kuma ay garan xafladdiina waa ay ku dhammaatay. middanna waxay ka mid ahayd waxyaalihii shakiga lahaa sida weyna dabka ugu sii qabtay xidhiidhka qarsoodiga ee laga sheegayo IU iyo ninka loo yaqaana Jungkook. intaas waa bilowgii oo qudha waxaan odhan karnaa waxa waa leeyahayd markii Jungkook ka hinaasay IU inay dooratay Suga inuu la daadiyo heesta la magac baxday 8 oo ay soo saareen bartamihii 2020. IU waxay rabtay raabar dhammaystiran oo heesta kala qayb qaata waana sababta ay u dooratay Suga maadaama uu yahay main raabarka kooxda BTS. sida la sheegay Jungkook wuxuu culays weyn ku dareemay inay si toos ah ula soo xidhiidhaysay Suga markasta gabadha la yiraahdo IU una arkay marar badan codka ay wada sameynayaan iyo waliba qaab layfa oo ay soo wacayaan. middanna waxa keenaysay maadaama ay laxanka fahansiinaysay oo ay lahayd gabadha loo yaqaana IU si ay gabi ahaanba u soo saaraan hees dhammaystiran. eraanka iyo xidiga kooxda BTS ninka loo yaqaana Jungkook waxa uu jeclaa booska inuu ku jiro oo xusay laabay kaliya inuu yahay pop star iyo fanaan caadi ah ee aanu ahayn gabi ahaanba waxa loo yaqaano rap star. middanna waxay dibadda u soo saartay khilaafka dhex maray Suga iyo Jungkook markii gabi ahaanba ay middan isku fahmi waayeen balse markii ay heshiiyeen Jungkook waxaa la sheegay inuu istaad raaciyay soona geliya barihiisa bulshada inuu noqon doono kan ugu horeeya ee ka qayb qaatay heesta IU ee ninka loo yaqaano Suga soona geliya baraha bulshada ee kala duwan kana qayb qaata faafinteeda iyo dhegeysigeeda. Away. However, there still were fans who were suspicious. mar kale xafladda abaalmarinta ee Mama ee 2020 ayuu noqday Jungkook midaan yarna qarsan dareenkiisa sababo la xidhiidha ficilada badan ee uu sameeyey gaar ahaan markii ay ku luqeynaysa mid ka mid ah heesaheeda iyadoo saaran stage-ka isna ula fadhiya xubnaha kale ee BTS oo inay ku sugan yihiin backstage-ka ama qaybaha dambe ee xafladda. Jungkook waxa uu muuqday mid ku raaxaysanaya hadbeerayada quruxda badan ee ka soo baxaya afkeeda iyo codkeeda gabi ahaanba dahabiga ee macaan middan oo ku muujiyey dareen iyo sidoo kale qiraan caadi ahayn
heeruu gaadhay weliba inuu madaxa u ruxo. sidoo kale waxaan marna qarsoomin Jungkook inuu attentionkiisa oo dhan siinayay dhaqdhaqaaqa ay samaynaysa IU, waxaana la xasuustaa inuu ishaan waayay markii lagu dhawaaqay magaceeda ee abaalmarinta la guddoonsiinayay dhanka stage-ka, isagoo si weyn sacabka ugu tumay misena isu taagay. xataa hortiisa markii ay maraysay ishiisu waxay noqotay gabi ahaanba mid ku dhegagta IU. intaasoo qura maaha, markii ay tagtay goobtii biladda iyo abaalmarintii ay hadashay ayay tidhi IU, waxaan dareemayaa xoogaa xabeeba, codkayguna maaha mid hagaagsan. balse Jungkook oo aan isogayn qirada iyo dareenkuna ka tambadiyey uuna la fadhiyo ninka la yidhaahdo Jin ayaa si sare u yidhi maya waa okay, waa uu fiican yahay codkaagu. heer Jin gabi ahaanba uu ku qoslay midanina ay noqotay mid lagaga maadsado. calaashaan waxaad moodaa inuu mikrofoonka u hayo jawaabta qofkii bixinayeyna isagoo uu yahay. heer waxay gaadhay sheekadoodu IU taageerayaasheedii armiska kala duwan ee BTS ay ku qayliyaan magaca Jungkook si ay mar uga hadasho arrintooda iyo waxa ka dhexeeya labadooda, iyagoo aaminsan middan inay ka weyn tahay taageero kana culus tahay xaqiiqadii. balse qosol ay kaga jawaabtay midaasi gabadha la yidhaahdo IU. markan ayaa waxaa iyaduna shakigeeda lahayd in ninka la yidhaahdo Jungkook uu dib u booday dibna u laabtay kadib markii xubnaha BTS loo soo yeedhay si ay fanaaniinta oo dhan isu taagaan dadka hortooda, halkaasina ay sawiro galaan. balse middan waxaa loo arkay inay tahay qajilaadii lagu yaqaanay Jungkook kadib markuu isagoo ugu soo horreeyay 7 wiil arkay qofka ka horreeya inuu yahay IU, isagoo ka cararaya inuu isgarab taago maadaama uu ku qasban yahay haddiiba ugu soo horreeyo inuu dib u laabtay. middan u fiirso, waxaad ka heli doontaa gabi ahaanba xaqiiqo dhaba oo ku saabsan waxa aan ka hadlayo. sababta uu dib ugu laabtay ee uu hore ugu soo socon waayey garabkeeda inuu isu taagi waayey. there is something halkana waxayaa ku jira. sidoo kale waxaa jirtay heestu ku looqeeyey ninka loo yaqaana Jungkook oo ay leedahay gabadha la yidhaahdo IU. mar laga codsaday inuu hees qaado ninka la yidhaahdo Jungkook, balse waxaa la isweydiinayaa sababta uu doortay heesta ay leedahay gabadha loo yaqaano IU. middanna shakigeeda ayay lahayd, waxaase u sii dheereed weliba inuu ku qaadeeco dareen leh ilama uu silaaway kuna muujiyey dareen oo dhan. u fiirso. intan oo keliya maaha, xataa hadda ka hor waxaa hore u dhacday inuu xaflad ku guddoonsiiyo ubax, middan oo iyaduna shakigeeda lahayd maadaama dad badan ay yidhaahdeen waxay ahayd keliya taageero iyo fanaan idolkiisa maadaama uu la kulmay Jungkook. balse inuu ku guddoonsiiyo goob sidaasi mashquul badan intaasoo kuni ay joogaan ubax ma ay ahayn arrin fudud. haddaba daawade, maxaad ka leedahay sheekadan? qofkee ayaa wax jecel labadan fanaan? miyay jirtaa arrin inaga qarsoon oo aad og tahay adigu ama aanan anigu ogeyn? sidoo kale saaxiibtinimo iyo taageero mise jacayl, midkee ayaad ku tilmaami lahayd? muuqaaladan aad daawatay iyo xogtan aan kusoo gudbiyey intaba hoos igu dhaaf fikirkaaga. jawaabta anugu adiga ayaan ku daynayaa. waxaan keliya kuu soo gudbiyey xogtii laga qoray labada fanaan iyo sidoo kale waxyaalihii laga sheegay ee gabi ahaan baaxanta ahaa. aniguse adiga ayaan ku daynayaa jawaabta. ma xukminayo oo ma odhanayo waa sidaasi. hoos igu dhaaf fikirkaaga, qaabkaad u aragto iyo sidoo kale codsiga muuqaalka aad jeceshay inaan ku xijino midkan. hana ilaawin inaad la garaysa muuqaalka, subscribe-da oo kusoo biir YouTube-keena Baldahab TV si aad u noqoto daawadaha muuqaalka xiga midkani oon hubo inuu leeyahay xiise gaar ah. lana wadaag saaxiibada jeclanka iyo K-pop si ay u daawadaan iyaguna markooda. Why don't you all introduce yourselves? So who have we got here? Hello, we are BTS!